xisbiga mucaaradka wadani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dhaliilo dabayaaqadii toddobaadkeenu ka soo gudubnay warbaahinta ay u mariyeen siyaasiyiinta kale ah maxamuud xaashi cabdi maxamed aadan qabyatire iyo sidoo kale maxamed iid dembiil xisbiga talada haye kulmiye iyo sidoo kale xukuumaddii ka dhalatay ee hogaamiyey madaxweyne biixi siyaasiga cabdilaahi jaamac ismaan geeltire oo waraysi gaara gudaha Hargeysa saaka ku siinayay telefishinka Somali Cable ayaa arrintaasi ka hadlay waxaana ugu horeyn aan weydiiyey bal sida ay ula muuqato dhaliishaasi siyaasiyiintaasi ay u jeediyeen xisbiga kulmiye iyo dhankooda waxa uga baxay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamay Faisal iyo TV-giinaba iyo daawadayaashaba warinta saddexda oday ee ka tirsanaa xisbiga kulmiye sidaad sheegtay maxamuud xaashi cabdi iyo maxamed qabo iyo inay dembiil saddexdaas hadlay saddexdu waxay ka hadleen laba arrimood mid waxay ahayd xisbiga ay ka tirsan yihiin xubnaha kulmiye iyo wixii shirkoodii ka dhacay madaxweynaha wixii la xiriiriyay ay ka qabeen taasi iyagay xisbigaas ay u gaartay iyo xubnimadooda xaq baan ay u leeyihiin wixii iyagu sooranayaan xisbiga isaga jawaabay taa anagu shaqo kuma lihin waxaase ay ka hadleen waxyaabo badan oo kale oo ay ka mid tahay dhaqaalaha maamulka loo maamulay ballanqaadyadii xisbigu u qaaday ee xukuumaddu ahayd inay fuliso oo fulin arrimo badan oo siyaasi ah noocaas ganacsiga ayay ka hadleen kuwaas ayaa ah kuwan anagu aanu marka horeba aanu xukuumadda ku dhaliilaynay iyaguna ay imika ka hadleen waxa kamida sidaan sheegay wadooyinka la ballan qaaday elections oo dib u dhacay inkastoo imika ay si wanaagsan u socdaan hore u socdaan waxa kamida wadanka dhaqaalihiisii oo almost taagan waayo dawladuhu waa ogtiin markay wax dhacaan masiibo oo kale ay dhacdo sidii marka cudurkii kale covid ah oo kale dunida oo dhan meel walba ama wadan wax gaar ah ku yimaadaan oo dhaqaalihiisa hoos u dhiga dawladdu iyada ku soo deysa hantideeda iyo lacag ku soo deysa si ay ganacsatada iyo dhaqaaluhu dib ugu dhaqdhaqaaqo oo aan shaqo waa ka dhicin oo aan cashuur waa ka dhicin dawladdu iyada soo deysa waxa dawladda wax ka muuqata in sidii ay u timi saddexdii sanadood wax ay dawladdu dhaqaalaha ay ka qabatay aanu haba yaray jirin marka laga reebo sicir bararkii lacagta hoos inflationkii ku yimi oo imika stable noqday banka dhexe oo ka shaqeeyay laakiin wadanku dhaqaalo shaqadii ganacsatadii ay taagan tahay wixii soo digayay waxa waliba ay maaragtay ay stagnation ay ku jiraan waxa kaloo markaa ka muuqday dee siyaasad ahaan in wixii aan anagu marka hore ku dhaliilayn ay ka mid tahay dadkii oo qaybsan weli sidii doorashada u dhacday oo aan dawladdu aanay mar walba loogu baaqayay ama ashkhaas ha ahaato ama xisbiya ha ahaato inay xukuumaddu isku daydo inay dadku ay dib loo urursado wixii in laga jajabay oo dib ummadda la isugu keeno aad moodo sidii loo kala go-ay uun doorashadii in weli leeyahay inkastoo ay xumaddu ay sidii hore ka yara jaban tahay oo weliba anagu xagga iyaga arrimaha ka dejinay oo aan dhabarka u dhignay canaanta nagaga imanaysa taageerayaashayada sababtoo ah waddanka aanu maaragtay dhowrayno inaanu hoos u dhignay laakiin aanay xukuumaddu tallaabooyin wanaagsan oo isu keenisa aanay weli aada u qaadin taana iskaga mid baanu ahayn ganacsatada in la dhowro oo ganacsigu xor ahaado iskaga mid baanu nahay sharikadaha waddanka wax yeelaya sida Trafigura oo kale lagu yaqaano caalam ahaan kiisas ay galeen lagu yaqaano inaynu la macaamilo aynu keenno oo weliba la isku sii tuhmo inay maaragtay ay xukuumaddu dabada ka wado taasoo kale iskaga mid baanu nahay oo aan hore uga hadalay dhowr goor anagoo kala duwan xogeyaashu ka hadleen xogeyaha guud ka hadlay xisbigayaga aanu aada uga hadalay
aad iyo aad baanu ugu soo dhaweynaynaa hadallada siyaasadda iyo horumarka ku saabsan ee ay ku dhaliileen xukuumadda ku dhaliileen iyo xisbigoodu inuu fulin waayey taanu anagu aanu kala mid nahay waa taa wixii kale iyaga u gaara ma ay madaxweynaha ka sheegayaan hoggaankiisa u gaarka xagga xisbigooda taa iyaga xisbigaasay u taalla saan horeba u sheegay laakiin khudbad waxyaabihii dhaliilihii soo jeediyey taariikhda xisbiga ay ka hadleen waxaasoo dhim xisbigooda ay u taallaa dee amba ka mid baan ahaan jiray oo waxyaabaha aan garan karaana way jiraan marka waxaan leeyahay waan soo jeedinaya waxaynu maxaafid iyo mucaarid aynu wada joognaa waxa weeye waddankan iyo ummaddan hore u marino inaynu kala haysano inaynu kala goosanno maaha in uu kolba qofka fuulaa isku duubo oo aniga wax la yidhaa noqdo maaha in wax alaale wixii dhaqdhaqaaqa lagu tuhumo oo la yidhaa ama madaxweynuhu baa ku lug leh ama cid kale kusii lug leeya kusii lug leh ama dhaqdhaqaaq caynkaas in la isku tuhumo maaha wayna waxaynu bannaanka yaallaan macnaheedu haddii la caddayn kari waayo maaha ma jirto wixii la caddayn kari waayo oo dhami dee macnaheedu maaha ma jirto haddii tuu yidhaahdo meeshii qiiq ka baxo dee waxaa la yidhi waxaa jira dab qiiqu iskama baxo marka istuhunsaarku waa waxaynu dimuqraadiyadda u qaadan waa waxaynu system la doonaya inuu miiskaa dushiisa u qaadan marka iyadoo aan layskuba mudin layskuna ceebayn waxa xaq laysugu leeyahy inaynu miiskaa xalaal duhur baa la qashaa baa la yidhi inay waxaynu miiskaa yaallaan systemka dimuqraadiyadda la doortay waa kaa kaanu doonayn inaanu dhiiri gelinana waa kaa kaanu ugu baaqaynana waa kaa annagoon cidna caayan cidna aflagaadiin waxaanu leenahay waxaa jira ee tuhuna hadday kontaraagyada la qaadanayo tahay haddii hantida kale tahay hadday wax kale tahay haddii tuhunba yimaado systemkaynu dhigan waxa inaan tuhunba iman buu ahaa systemkaynu dhigan haddiise uu yimo lasfarta laysku fiifiiqo waxa wanaagsan cidda wax noo haysaa inay tidhaaho waxba kama jiraan inay bannaanka soo dhigto waxba kama jiraan yidhahaan haddaanay jirin haddii kale ay ku qaldameen oo si kale iyadoo ula muuqata ay si kale u noqotayna inay yidhahaan way dhacday waanu qaldanay waanu saxayna intaas xaq la isugu leeyahay ceeb kalena ma taalo aflagaado kalena ma taalo marka cabdillahi ma waxaad leedahay arrintan ay siyaasiyiintaasi sheegeen ay xukuumadda ku dhaliileen waa wax jira sida aan kuu sheegayo waa wax wada jira arrimaha siyaasigaan ka hadlay wixii kale xisbigooda iyo shakhsiga ay ka hadlayaan annagu taa waa kuu sheegay shaqo kuma lihin waanaanu iska fogeynaynaa waxa xisbiga laakiin waxaa waddo lama dhisin ballankii lama fulin doorashadii may dhicin yani dee dhaliilaha dhaqaalihii halkii inuu kasii daro mooye ma hagaagin dhaliilahaas waa dhaliilahan anagu awalba jeedinayna aan xukuumadda u jeedinayna jawaabta iyadoo gaaban dee waa ha haddii markaa xukuumaddu ay leedahay ma jiraan dee way joogaano way ma jiraan bay odhan doonaan waa ka warsugayna dadkuna waa maqlaya dadkuna waa noo dee markaata waa maqlaya faysal maxamed aadan faysal fifa tv-ga Somali Cable Hargeysa